casrigan hadda aynu joogno waxyaalaha aadka isku bedelay waxa kamid habkii loo shaqaysan jiray berigii hore hadii qofku markuu rabo inuu shaqaysto dukaan uu shaqo tagi jiray ama shirkad ama xafiis dawladeed ama hay'ad ama marka qaar isagoo ganacsi uu samaysto ama ha weynaad ama ha yaraado waqtigan hadda aynu joogno waxa aad iyo aad u caan baxay waxa loo yaqaano shaqaynta ama shaqada madax bannaan oo hadda Soomaali ahaan waxa English loo yaqaano freelancing Soomaali ahaan marka uu soo dhaweeyana waa shaqo madax bannaan muuqaalkan isaga waxaan si tip by tip ama talaabo kugu sharxi doonaa habka aad u bilaabi doontid iyo ilaa habka ugu sareeya iyo halka ugu fiican aad ka gaari doonto haddii Ilaahay yiraahdo ka faa'iideysi wanaagsan inta aanan u gelin casharkan isaga iyo muuqaalkan aan isleey wax badan baad ka faa'iidi doontaa waxa hubaal ah in ilaa hadda page-kan ama channel-kan aanad ku xidhnayn sida awgeed waxa codsi ah in like-na aad saarto nagala bakhaylin isla sidoo kale hadaad nagu cusubtay aad follow ama subscribe aad noo tiraado waa noo sharaf aan ku bilaabo sheekadayda qiyaastii waxaan ku qiyaasay ilaa 8 sano 2016 2015 meelaha ayaan hawshan iyada aan bilaabay habkan u bilaabay runtii waa hab aad iyo aad u xiiso leh oo iyada lafteedu sheekay iskeed u madax bannaana aan ku soo bilaabay waa halkan ka bilaabay waa markii ugu horeysay waxaan aad iyo aad u xiisayn jiray waligayba in aan waxyaalaha media ama multimedia in media aan sameeyo hadday tahay codadka iyo design garintooda sameeyntooda hadday sawirtay hadday fiidiyootay waxyaalaha waligayba waa iska jeclaa dabadna maalmaha kamid ah ayaa aan runtii isugu dhuftay shaambada aan soo hayay wax badan ba taqaana nin marka aan isku wanaagsaneyn oo qoonyahana ayaan ku website hadda u baahantay ana ku sameeyay website-ka ninkay wixii lacag ay u baahnayd oo dhan baan ka soo qaatay waa ilaahay dartii wax la faa'iido ka helaya ma jirto mashruuci marka inaan website u sameeyo ayaan bilaabay waqti yar kadib waxa dhacday in mashruuci markaan sidii soo bilow soo wax allaale waxaan ka aqaanaba hawshaniyada ma jirto website-yada iyo sameeyntoodu waa digada ayaan ka ahay waxyaalaha qaldan waxa kamid ah inaan sameeyo dhowr website oo nooca loo yaqaan drag and drop website-yada ugu fudud ee la sameeyo wuxuu badan ka soo jiidaysaa halkan dhigaysa qofka yaqaana garanaya waa hadii website aad sameynayso waxyaalaha ugu fudud ee la sameyn karo laakiin markaad qof leedahay website baan ku sameynayay ma aha macnaheedu waxa xuna fudud inaad sameysay ka ugu quruxda badan leh ee ugu shaqaynta wanaagsan inaad qofka u sameyso ayaa loo baahan yahay waxba sheekayana kugu daalin ninkii muddadii aan ugu tala galay 2 bilood 3 bilood bay ahayd way dhaaftay 5 bilood bay gaadho 7 bilood bay gaadho 8 bilood bay gaadho 9 bilood bay gaadho sanad wax ku dhow markii dambe ay gaadhay wax allaale waxaan arintan iyada garanayaan oo ka qaban karaan ma jirto halka sheekadu markay marayso waxay nafti markaa bilowday ama ma aan isbaray inaan xirfado badan aan samaysto oo aan isbaro maadaama meeshan iyada aan waxba ku hayn dabadna waxaan bilaabay inaan multimedia si aad ah u sii barto waxaan bilaabay in website-yada sameeyntooda aan barto waxaan bilaabay inaan barto Allahumma salli ala Muhammad habka wax loo dhisan gareeyo waxyaalo fara badan bartay ugu yaraan ilaa 40 ilaa 50 course ba waxaan ku dhigtay waxa 3 bilood ahayn ayaan ku dhameeyay tii markaa waxay abuurtay wax badan iyo karti badan bay runtii abuurtay halka waxa sheekadu ii marayso waqti yar kadib Ilaahay waa ii fudeydiyay website-kii waan sameeyay anoo cid kale kaashanaya waana waxyaalahan kaaga sheekan doona hadii Ilaahay yiraahdo website-kii ninkii waan ku wareejiyay waqti yar kadib ayaa fikrad igu soo dhacday warniyo hadii imka waxa soo xirfadaad baratay wax badan aad garanaysid baahidan dad badan aad ka saacidi karto maxaad business iyo ganacsi aad ugu bedelay isla sanadka dhamaadkiisii ayaa waxaan bilaabay marka in aan sameeyo shirkad waxaan u magac daray Guuleydis xataa magaca garanay waxaan magaca ugu doortay logo ayaan u sameeyay markii dambe website baan samaystay dabadna waxaan bilaabay inaan shirkadaha iyo ganacsiyada waaweyn ee magaalada intaan u tago inaan idhaahdo website baan idin sameynaya halka waan ku soo sheekay dhaafay markaan kule website baan sameynay anigu gacantayda ku sameyn maayo waxa aan bartay meel aan dilaali karo qolooyinka website-ka sameeya markaan nin baan u tagaya ninkaas waa Hindiyaan oo Bengali oo Pakistani oo dadka aad u inta badan Asianka dadna mashruuc baan soo bandhigaya website baan doonay inaad igu sameyso xisbitaal ama ba hay'ad oo kale dadna mashruuci baan siinayaa intiisii badnayd ana lacag wanaagsan ma ka qaadanaya isaguna uu guuleystay ana waan guuleystay waliba website aad u qurux badan ma qoladii shirkadda ahaydna aanu sameeyay business kan bilaabay marka ay madaxa bannaan kaas u ahaa xoogana waan ku waday habkan ku bilaabay iyo ilaa hadda san wax u wadana waan kula wadaagi doonaa muuqaalkan isaga haddaba marka ugu horeysa marka doonaysid inaad bilowdo shaqo madax bannaan ama freelancing inaad bilowdo marka ugu horeysa waxa lagaaga baahay inaad xirfad aad taqaan xirfadaasi waxay noqon kartaa wax allaale waxa aad doonaysid iyo waxaad ku fiican tahay laga soo bilaabo xirfadaha gacmaha laga qabto sida light trick oo kale nijaarnimada oo kale xirfadaha kombiyuutarada lagu qabto
haddii ay tahay waxa weeye qoraalka, hadday tahay video editing-ka, hadday graphic design-ka tahay, xirfadaha sida oo kale dumarku ay yaqaanaan, sida qurxinta oo kale, decoration-ka oo kale, xafladaha iyo diyaarintooda oo kale, cuntada iyo samaynteeda oo kale, wax allaali waxay doontay noqon kartaa. marka ugu horeysa waa inay jirtaa xirfad aad rabtay inaad ku shaqeyso, dadkana aad kaga qaadato lacag. baha iyo hadal looma baahna, waa inaad dadka aad wax u qabataa say lacag ku siiyaan. barashada xirfadda markaan ka hadlayo waxaa muhiim ah inaad ogaato dhowr arrin. waxaa loo baahay marka hore inaad barato xirfadda si aad ah u barato, maadaama dad ugu shaqeynayso waa inaad dadka isku soo baxsano qof jaahil aan noqon. walaba waxaa loo baahay marka qaar in xirfaddan aad baratay aad ku dadaasho in aad u bedesho khibrad. marka qaar dad ilaahay dartii ugu shaqeey, bilaash ku shaqeey, qof caawi, lacag yaro jaban ku qaado. almuhiim aqoonta aad baratay soo tijaabiyo, waxaad ka dhigtaa wax camal la qaban karo ayaad ka dhigaysaa. inta markaad ka timaado waxa idan muhiim ah in dadku waxa weeye ay ku kalsoonaadaan. marka kalsoonida waxa keenaysa aqoonta khibradda aad u leedahay baa keenaysa. marka qodobka koobaad wuxuu ku leeyahay xirfad baro, xariif ku noqo, ku shaqee. halka markaad marayso hadhow waad ku shaqo tagi kartaa ee xaaladda labaad gudub. marka tusaale ahaan kaba soo qaado inanka Cali oo tusaaleheena ku soo qaadanayno wuxuu yaqaan xirfadda loo yaqaan social media marketing. xirfadda waxaan u doortay xirfad caana fudud barashadeedu, isla sidoo kale anigu si gaar ah u dhigo. marka waad la soo xiriiri kartaa haddaad u baahan tahay. xirfaddani waa xirfad kaaga baahan marka inuu qofku baraha bulshada uu yaqaano isticmaalkeeda, dadkana uu ka caawiyo sidii ay u isticmaali lahaayeen. xaysiisad samaynaysaa, postiyo kala duwan baad samaynaysaa, dadkaad uga jawaabaysaa, waxyaalahaas aad ku dadaalaysaa. qofkii yaqaano baa yaqaan. halka marka taagantay marka marxaladii labaad baan u gudbayaa. marxaladdan labaad waxay ku leedahay waa inaad shaqadan aad u qabataa cid gaar ah. marka tusaale kale inankii Cali ee social media yaqaanay waa inuu ku dadaalaa inuu shaqadan uu si gaar ah ugu qabto dad gaar ah. tusaale kale waa social media management, waa xirfadda maareynta baraha bulshada ee cusbitaalada. marka cusbitaaladu mad gaar takhasus aad ku yeelanaysaa. ama mararka qaar waa inaad xoogga aad saartaa baraha bulshada ee iskuulada iyo dugsiyada waxbarashada, ama baraha bulshada maareyntooda warshadaha oo kale ama wasaaradaha oo kale. adigu saa u sii wad. marka waa inaad sector gaar ah iyo qolo gaar ah aad u shaqeysaa. marka waxay ka caawinaysaa inaad mashaakilkooda, waxyaalaha la dhib mudan yihiin, waxyaalaha inta badan carqalad ku ah, waxyaalaha intaad hore u barato ee xalkeedana hore u soo saaraysa. marka qolac yimaana si gaar ah u sii dooro. kadib marxaladii saddexaad baan hadda u gudbay. marxaladda saddexaad waxay ku leedahay marka aad dooratay xirfaddii aad taqaanay, aad ku fiicnay, qolo gaar ahna aad u sii dooratay, waxaad u gudbaysaa marxaladda saddexaad. waxaa loo yaqaanaa samaynta portfolio. portfolio waxaa loo yaqaanaa waa khaanadda ay kugu urursantahay dhammaan wixii hore soo qabatay oo dhan. marka qofku markuu doonayo aad u qabato waa inaad u sheegi kartaa qoladaasaan wuxuu soo qabtay, qoladaasaan wuxuu soo qabtay, qoladaasaan wuxuu soo qabtay, qoladaasaan wuxuu qabtaa hadda, qoladaasaan waxaa ka caawiyey. dabadna arrintaasi waxay kaa saacidaysaa inuu qofku hore kugu dhiirido, inuu qofku hore ugu dhiirido in waxaan uu ka iibsado amaba uu si toos ah kula tacaamulo. marka marxaladdan waxay ku leedahay diyaarso mashaariic aad ka shaqaysay amaba qaar aad hadda gacanta ku hayso. haddii aanay jirin ka waran, haddii aanay jirin waxaad samayn kartaa qaar bilaash dad u samayn kartaa. marka cusbitaal baad tagi kartaa Caliyow, waxaad leedahay baraha bulshada ka saacidiya si bilaash ah baan waxay ku qabanayaa, hase haatee idinkuna review fiican iyo ammaan isii ayaad ku oranaysaa. marka intaa markaad ku tiraahdo waxaa hubaal ah in CV-gaaga uu dhismaayo. dadka hadhow aad wax ka iibin doontaan waxaad u sheegi kartaa inay mashaariicaad ka soo shaqaysay inay jiraan. haddaba arrintan si ay kugu suurto gasho waxaad u baahan tahay Facebook page aad soo dhigto waxa weeye mashaariicdaada. mararka qaar waxaad u baahan tahay website waa haddii suurtagal ay ku tahay maaliyad ahaan. mararka qaar waxaad u baahan tahay TikTok account aad ku soo bandhigto si aad wax u qabatay fiidiyoyada. mararka qaar waxaad u baahan tahay meelaha inta badan laga shaqaysto freelancing loo tago. hadhow baynu ka hadli doonaa inaad ku yeelato goob iyo meel ay dadku ka arkaan wixii aad hore u qabatay. marka qodobkaasina waa qodob kale muhiim ah. halka marka ay sheekadu ay marayso inankan Cali waxaa laga rabaa, ama tusaale inantan Caaliye oo kale waxaa laga rabaa in xirfaddan markay halka xaaladda ay la taagantay inuu qiimo u dajiyo oo dadka hadhow yiraahdo bishii waxaa sanad ku shaqeynaya amaba saacadii waxaa sanad ku shaqeynaya ama mashruucan waxaa sanad ku qabanaya. marka waa in qiimo iyo lacag aad dajisataa dadka aad ku fahmi kartaan. intaad bilowgatay waxaan kula talin in qiimaha yar hooseeyo ilaa dadkii kale la awood ma tihido lacaan oo sidoo kale xirfad iyo caanimo ma lihid sidoo kale. marka qiimaha hooseeyo rid isla sidoo kale marka doonayso inaad qiimaha ku fadhiiso adeegaagan hareerahaaga la eega dadka kula midka ah maxay dadka ka qaadaan ida lafteedu waa standard qaadan karto.
waqtiyada qaar waxaad samayn kartaa in aad mashruucan baaxad uu leeyahay ku qiimeyn karto hadduu mashruuc aad u weyn yahay lacag badan baad ku qaadanaysaa haddii hawshu iska yartayna dee lacag kooban marka habkaana waxaad ku soo baratay habka lacagta ama lacagaynta ama qiimeynta adeegga dadka aad u qabanayso intaasoo dhan markaad dejisato waxaa lagaga baahan yahay waa qodobka kale kusii xigay in aad iska diiwaan geliso meelaad macaamiil ka helayso marka inta badan waxaa jira saylada caalami oo dadku inta badan dadyoga madaxa bannaan ay ka kireystaan isla sidoo kalena ay waxay shaqooyin iyo mashaariic u dirsadaan waxa kamid ah website-ka caanka loo yaqaan freelance waxa kamid ah kale loo yaqaan Fiverr waxa kale la mid ah mid kale loo yaqaan Upwork waa qaar caalami ah oo meel wal oo daafaha dunida qofku uu joogo laga kireysan karo mashruuc la siin karo ku guuleysan karo laakiin waxay u baahan tahay inaad taqaano xirfad digital ah xirfadaha qofku online ku qaban karo isagoo gurigiisa jooga isagoo qofka mashruuca loo qabanayo uu ka fog yahay mashaariicdaas ayaad u baahan tahay inaad barato waxa kamid ah fiidiyoyada sameeyntooda waxa kamid ah graphic design-ka waxa kamid ah social media management waxa kamid ah waxyaalaha ku tacalluqa oo dhan qoraalka waxa kamid ah xisaabaadka iyo accounting-ka waxyaalaha noocaas oo kale waxyaalaha aad sameyn karto adoo qofka ka fog isagoo Mareykan jooga ayaad halkiisa ugu shaqeyn kartaa marka xirfadahana waxaad u baahan tahay inaad iskeedu barato marka xirfadaada hadday tahay xirfadaha noocaas oo kale ah waxaad iska diiwaan gelin kartaa website-yada caalamiga ah ee qofku isagoo adduunka waxa weeye jooga daafihiisa kala duwan uu qof uga shaqeyn karo dhinaca kale adduunka ka jooga marka taana waxaa loo yaqaanaa iska diiwaan geli sayladaha caalamiga ah haddii xirfadaadu markaan ahayn mid aan noocaas oo kale ahayn oo ay tahay mid gacanta laga qabanayana iyada lafteeda wax dhibaato male groupiska inta badan Facebook groupiska caanka ah ayaad inta badan soo dhigi kartaa shaqooyinkaaga mararka qaar waxa weey Facebook page baad samayn kartaa xayisiin baad samayn kartaa si macaamilaad u hesho marka haddii shaqadaadu ay tahay mid gacanta laga qabanayo qof meel ka fog aanad waxba uga qaban karin oo aad tahay farsamo yaqaan gacanta wax ka qabtana taa lafteedu ma xuma laakiin saylada caalamiga waxba ka raadinay waxaad ka raadsataa waxay Facebook page-ka xayisiin ku samayso kolba lacagta ka galayso adiga jeebkaaga dadkan isku soo jeedisay u arkaan inaad tahay qof mudan in la kiristo mashruucna loo dhiibto qodobka ku xiga ee midownu ku dambeeyo waxa weeye waa inaad saxaysiiso markaad marxaladda aad taagantay waxa loo baahan inaad saxaysiiso macaamiisha sida loo helaa waa inaad saxaysiisaa isxaysiintu waxay noqonaysaa inaad kartidaada awooddaada mashaariicda aad hore qabatay intaba inaad qaban karto waa inaad dadka aad u sheegtaa in dhibaatooyinka ay u baahan yihiin ama mashaakilka ay u baahan yihiin ama ay hawlaha ay doonayaan in loo qabto inaad tahay qofka ugu mudan ee u qaban kara arrintan waxa ka saacidaya inaad samayso content waxa loo yaqaan waa nuxurkuna waxa weeye waa inuu qofku baraha bulshada uu soo geliyo waxa uu ka shaqeynayo hadda talaagadaha aad samayso ama decoration ka aad ku fiicantay ama cuntooyinka aad taqaanid ama sida dumarka loo qurxiyo aad taqaano shaqadaad waxay doontaa noqon kartaa waxa muhiim ah inaad dadka tusto waxa marka fiidiyoo ka duubado shaqadii haya fiidiyoo ka duub qofku siduu ahaa ama mashruucan siduu ahaa before-kiisii iyo after-tiisii kadib markaad gacanta saartay siduu noqday waxyaalaha kadib baraha bulshada soo gali dadku way arki doonaan macal waqtina waxaad arki doontaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu Ilaahay ka arsaaqayo dadku markay ku arkaan ay ku aaminaan kadibna wax ka iibsadaan markaas xaysiintu waxay noqonaysaa nuxur baraha bulshada soo gali mararka qaar waxay noqonaysaa in dadkii baahidan lahaa aad guryahooda aad ugu tagto marka xafiiskooda ugu tagi kartaa meelaha isugu imaantaan baad ugu tagi kartaa meelaha dadku fadhiistaan baad ugu tagi kartaa qofkan mararka qaar Facebook-giisa oo kala si gaar ah ula xidhiidhi kartaa marka dadka ilbaabkooda garaaco waxa tara shaqadaha dad u baahan tahay waan ku qaban karaa adigoo raadsanaya marka cidii u baahan hawshan iyada ah marka qaar waxaad samayn kartaa in dadkii hore aad ugu shaqaysay ama hore aad u saaciday ama hore aad wax ugu qabatay iyaga laftoodii aad tiraahdo kelmad wanaagsan iyo dhax marka dadka ay la hadlayaan dadkay ka dhaadhicinayaan qofkii uu ku amaanaya taasina hadhow waxay ka saacidaysaa idamka Ilaahay in dadkii macaamiil kale ay kugu soo xidhaan oo macaamiil kasta oo shaqaysa macaamiil kale kugu soo xidhiya taa lafteedu wax fiican waxay siintaa dadku ay aad u adeegsadaan waxaana loo yaqaanaa waa ereyga macaamiilka word of mouth ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa waana talaabada u dambaysa waxa muhiim ah marka aad shaqadan aad ku jirto in shaqo tayo leh oo iskeed u hadlaysa oo sheegaysa qofkan qabtay inaan qof caadi yahay qof kartile badan inuu yahay inaad waxa weey qofkii aad ku wareejiso shaqo kala dhantaalan oo foolxun oo aan qurux lahayn wax ka fiican si mashaariic dambe aad hadhow aad u hesho qofkana dad badan kugu soo xidho inaad qofka hadaad hagaajiso hagaajinta waxay noqonaysaa shaqo tayo inaad gudbiso hagaajinta waxay noqonaysaa waqtiga lagu qabtay inaad ka soo baxdo hagaajinta waxay noqonaysaa in qofkan si fiican aad u xidhiidhaan
oo xiriirka adiga isaga idin dhaxeeya uu noqdo mid wanaagsan oo tayo leh intaasi waxay ka saacidayaan marka in qofkaasi hadhow waxa weeye uu noqdo macaamiil rasmi ah macaamiil badanna uu soo xidho idamka ilaahay halkan waxaan kugu soo gudbiyay qodobo aad u muhiim ah oo ka saacidaya sidii aad u bilaabi lahayd ilaa ay xaaladda ugu dambaysa sidii aad u abuuri lahayd business ama ganacsi ama shaqo madax bannaan adigoo ku salaynaya shaqo iyo xirfadaad taqaano waxaan rajaynayaa wax badan aad ka korodhsatay inuun haddii jirto fikrad intaan ka baxsan oo muhiim ah oo jeceshay in laga hadlo xagga hoose aad igula soo wadaagi doontaa haddii waxa si gaar ah kuwa anfacay ay jiraan oo dadka ka shaqeeyaan la hadlaya freelance-kana ida lafteeda nala soo wadaag asxaabtana kala bakhaylin taladaada aad iyo aad bay sharaf noogu tahay haddii aad naga saacido in fariintan dad badan ay gaadho adigoo follow saaraya isla sidoo kalena sii share garaynaya السلام عليكم